السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور سيد عمر دكتور كلفاha isbitaalka jaamacadda Jazeera. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo in qaybta lafaha ee isbitaalka jaamacadda Jazeera ay qabato dhammaan adeegyada la xiriira xanuunada lafaha iyo kala goysyada. isbitaalka jaamacadda Jazeera qaybta lafaha waxa ay qabtaa dhammaan bukaanada jaba, ha noqdaan kuwa ka jaba lafaha yaryarka ama ha ahaadaan kuwa ka jaba lafaha waaweynka. sidoo kale isbitaalka jaamacadda Jazeera qaybta lafaha waxay qaliimo u sameysaa dhammaan bukaanada soo jaba, ha noqdaan kuwa jabkooda lafta banaanka ay u soo baxday ee emergency-ga ah ama ha ahaadaan kuwa kaleeto ee lafaha ka jaba iyadoo laftooda gudaha ay ku jirto, gacmaha ha noqdaan, lugaha ha noqdaan, qaybaha kale jirka ha noqdaan. sidoo kaleeto xanuunada lafaha ayaan la tacaalnaa, ha ahaadaan xanuunada kala goysyada oo dadka waaweynka ay qabaan, ha ahaadaan xanuunada garbaha, ha ahaadaan xanuunada ciyaartooyda ku dhaca, ha ahaadaan xanuunada ilmaha yaryarka ah ee lafa xanuunka ah, ha ahaadaan dadka waaweynka ee xanuunada dhabarka iyo xanuunada lafaha si guud ahaaneed uga cabanayo. marka qaybta lafaha isbitaalka waxay qabataa dhammaan xanuunada lafaha iyo kala goysyada iyo murqaha la xiriiro, ha ahaato daaweyn, ha ahaato qaliin ama ha ahaato siyaabo kaleeto ee xanuunadaas lagula tacaalayo. waxaan rabaa si gooni inaan bulshada Soomaaliyeed ula wadaago in isbitaalka jaamacadda Jazeera uu yahay isbitaalka kaliya ee haysto qalab loogu talagalay bukaanada lafaha dhaadheer ka jaba, qalabkaas oo lacag la'aan ah oo bukaanada danta yar iyo kuwa kaleba loogu talagalay in qaliin lacag la'aan loogu sameeyo. birahaas oo qofka maanta haddii la qalo ee la geliyo biritan insha Allah uu horay ka soconayo. marka isbitaalka jaamacadda Jazeera kusoo dhawaada. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago in isbitaalka muddadaas uu jiray oo bukaano badan oo Soomaaliyeed ha ahaadaan kuwa danyar iyo kuwa kaleba uu uga faa'iideeyey qaliimadaas lafaha iyo kala goysyada iyo infekshanada iyo dhammaan xanuunada kala duwan ee lafaha. kusoo dhawaada isbitaalka jaamacadda Jazeera.